بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدونك لبدا أقل برلمانك جمهورية فدرالك الصومالية حلبانada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya marti sharafta kale mudanayaal ee marwooyin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh haddii aan warbixin kooban idin siiyo walaalayaal isla markii aan xilka la wareegay waxaan la kowsaday laba xaaladood oo kala daran labaduba abaaro saameeyay in ka badan 7 milyan oo qof iyo khawaarijta oo sii kordhiyay culayska ay ku hayeen shacabkeena taagta daran waxaan qaaday tallaabooyin aan u arkayay markaas in ay lagama maarmaan u yihiin gogol xaarista hanaan wax looga qaban karo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ragaadiyay maadaama xalka dhibaatooyinkaasi uu ku jiro Soomaali heshiis ah ayaan annaga oo ka duulayna yoolkaas baaxadda leh sida ku cad barnaamijka xukuumadda dawladdeenu waxay xoog isugu geysay hiigsiyada soo socda 1 Soomaaliya sharcigu sareeyo 2 Soomaali heshiis ah 3 Soomaali dunida heshiis la ah 4 Soomaali isku filan iyadu 5 Soomaali cagaaran oo ka baxday xaalufka iyo maxaan ku raadal geeyiga guuray 6 dhisida hay'ado tayo leh oo bixin kara adeeg hufan oo ku filan dadka Soomaaliyeed mudanayaal marwooyin waxaan bogaadinayaa howlihii uu soo qabtay baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya kalfadigiisii koobaad oo ay ugu horeysay doorashooyinkii guddoonka madaxweynaha iyo kansoorisiintii ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda sidoo kale inaad dhisateen gudiyadii joogtada ahaa iyo xubnihii idinku matali lahaa baarlamaanada caalamka waxaan sidoo kale bogaadinayaa xubnaha ka tirsan baarlamaanka golayaasha ee u guntaday in ay garab istaagaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee u istaagay in ay iska xoreeyaan khawaarijta waxaan shacabka Soomaaliyeed hormuud uga noqoteen macnaha dhabta ah ee matalaada shacabku ay tahay ama ay leedahay maanta dalkeena iyo dadkeenuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn meel guuldarradu aanay boos ku lahayn boos uga bannaaneen guuldarro waxaan go'aansanay inaan u guntanno dagaalka dalka looga sifaynayo khawaarijta waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna islaamnimadeenna iyo qarannimadeenna dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xilgudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee Soomaalida maanta ay leedahay waa inaan isku garab siino shacab iyo dawladba sidii aan dalka oo dhan uga xoreyn lahayn halkaas cadow ee maanta aan leenahay dib u xoreynta dalka oo dhan waa wadada kaliya ee aan ku xaqiijin karno dal nabad ah oo uu sharcigu sareeyo waxaad ogsoontihiin in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ay ku baraarugeen dhagarta cadowga iyaga oo garawsaday khawaarijta al-shabaab iyo daacish in ay yihiin khawaarij in ay yihiin ka been sheegaya diinteena suuban kuna dhiiraday in ay iska dulqaadaan dulliga iyo heeryada khawaarijta ku soo gabatay diinteena abwaan Soomaali ayaa horay u yiri nin dayoobay soo noqoy markuu waagu daalacay dadweynihii la lumiyaan mar bay dowga helayaan dadkeenu maanta ayay dowga heleen dawladdeena anagoo muddo badan xafiiska joogin waxay garatay in kacdoonka shacabka Soomaaliyeed uu kaalin mug leh ku leeyahay sidii khawaarijta dalka oo dhan looga sifayn lahaa looga xoreyn lahaa annagoo aaminsan in shacabka Soomaaliyeed ciidankooda oo is kaashanaya ku
ku guulaysan doonaan dib u xoreynta deegaanada ku haray gacanta cadowga khawaarijta gacanta cadowga khawaarijta tusaale bilow ah waxaa inoogu filan dagaalada ka dhacay iyo guulaha laga gaaray gobollada Hiiraan Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud iyo diyaar garowga xoogga leh ee ka socda gobollo kale oo badan oo dalka ka tirsan waxaa shaki ku jirin in maadaama aan dagaal ku jirno cadowguna oo jab weyn gaaray ay beegsan doonaan shacabka aan waxba galabsanin sida weerarkii 29 Oktoobar ee ka dhacay agagaarka Zobe waxaan bogaadinayaa dadaalka ciidamada iyo shacabka oo iyo mas'uuliyiinta siyaasiyiinta oo u guntaday u gargaaridda dadweynihii ku waxyeeloobay waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryayaa inuu jannadiisii fardowsa ka waraabiyo shuhadadii nooga geeriyootay dilka xaqdarrada ah ee khawaarijtu ay geysteen sugidda amniga iyo ciribtirka khawaarijta ka sokow shacabka Soomaaliyeed waxa uu u baahan yahay Soomaaliya sharcigu sareeyo taas oo inaga rabta meel marinta shuruuc la jaan qaadi kara xilliga aan ku jirno iyo duruufaha inoo gaarka ah maanta Soomaaliya iyada oo taas laga duulayo waxaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu aan faray in ay ka howlgalaan soo gudbinta dhammaan shuruucda dalku u baahan yahay oo qayb ka mid ah oo muhiim ah ay soo gudbiyeen durbadiiba xildhibaanada Soomaaliyeed oo walaalayaal anigoo maanka ku haya in la helo jawi siyaasadeed oo xasiloon kaasi oo saamaxaya in si wada jir ah looga shaqeeyo xal u helidda arrimaha masiiriga ah ee u baahan heshiis siyaasadeed deganaanshiyo iska warqab isku kalsoonaan ayaan u baahanay sidaas daraaddeed waxaan booqasho ku tagay inta badan dowlad goboleedyada dalka waxaan sidoo kale yeelanay 3 kulan golaha wada tashiga qaran oo aan ku lafa gurnay xoojinta hanaanka wada shaqaynta heerarka kala duwan ee dowladda iyo isla meel dhigidda qodobada waaweyn ee ay tahay in xalkooda si mid ah looga wada shaqeeyo sida dhamaystirka dastuurka dalka oo waqti badan qabiirtirku soo jiitamay dhamaystirka hanaanka amniga qaranka si loo helo hanaan loogu midaysan yahay oo qayb mug leh ka qaadan kara xoreynta iyo la dirirka khawaarijta helidda nidaam doorasho oo heshiis lagu wada yahay oo loo sii dhaweeyay shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay degan yihiin mudnaan siinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka arinta xal u helidda Somaliland iyada oo loo maraayo wada hadal isu tanaasul iyo isqancin xoojinta iyo dhamaystirka nidaamka federaalka ah dhamaystirka iyo taabagelinta hanaan garsoor oo madax bannaan oo isla markaana hufan maadaama ay waajib tahay in dowladnimadeenu ay ka turjunto baahida shacabka loo adeegayo waxa aan sidoo kale shirar kala duwan oo wada tashi ah la yeeshay qaybaha kala gidisan ee bulshada Soomaaliyeed oo aan ka dhageystay talooyin wax ku ool ah oo ku aadan arrimaha ay u arkaan in ay mudnaanta la siiyo inta aan ku guda jirno muddo xileedkeedna waxa aan markii aan xafiiska imiday safarro dalka dibadiisa ah ugu ambabaxay dalal kala duwan ujeedada safaradaasi iyo booqashooyinkaasi waxa ay salka ku hayeen qorshaheennii ku aadanaa inaan helno siyaasad arrimo dibadeed oo ka duulaysa Soomaaliya diriskeeda iyo dunida heshiis la waxaan safaradaas aasaas u ahaa inaan madaxda dalalka aan ka wada hadalno danaha aan wadaagno iyo qaabka ugu habboon ee ay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska iyo dib u soo yeelashada iyo soo kabashada qaranka Soomaaliyeed iyo kaalinta ay ka geysanayaan dagaalka aan kula jirno khawaarijta manaxaanka ah
عقبة كوة دولة لماذا ينرشة ضدك الصومالية كواسي أو بنيستي دارين تدي جودة بوب كهانتي دودا كحد جذب كشرفتودا لما أنسى فرداس وحان كلا صور لابني قولوا أنا أو ما ضحى الدركاس سكر عني إن دور مقله إن دور مقله كجيستان أرماها هرتبين تقوله دولة ديننا يوم دالة أن كوبادي جوبينو دبوديس كدلك يحوجنته دولة نبدا عردن كا مانتا عن هيسن waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u xaqiijiyo in siyaasadda dawladeenu ay lafdhabar u noqon doonto in la soo dhaweeyo cid walba oo diyaar u ah inay naga taageerto arrimaha mudnaanta inoo leh iyada oo aan isu dheeli tirayno danaha aan caalamka kale nahay iyo kuwa ay iyagu naga leeyihiin Soomaaliyeed xilligan joogto inta ay saaxiibo u baahan tahay ayaa ka badan inta ay cadow u baahan tahay mudanayaal marweyn sida aad la wada socotaan dalkeenu waxa uu la tacaalayaa xaalad adag oo ka dhalatay jiilaalka iyo abaaraha daba dheeraaday ee ragaadiyay nolosha dadkeena ku tiirsan dhaqashada xoolaha kalluumaysiga iyo tacabka beeraha saamaynta abaartaas ama abaarahaas ka dhalatay ma saameyn kaliya dadka balse waxay dhaawac u geysatay dhaqaalaha guud ee dalka maadaama xoolihii iyo beeruhu yihiin lafdhabarka dhaqaalaheena si abaartaas looga hortago dalkana looga badbaadiyo macluul baahda oo galaafata dad badan oo Soomaaliyeed waxaan qaadanay tallaabooyin isugu jira qareemid uu hormuud u yahay ergey gaar ah ee abaaraha kaasoo aan magacaabay intii maalmihii ugu horeeyay ee xafiiska aan imiday muhiimadaas ergeyga uu lahayna waxay ahayd caalamka inuu gaarsiiyo fariinta iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed ee ku wajahan abaartaas waxaan dhisnay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada taas oo durbaba ka hawl gashay sidii loo gaari lahaa Soomaaliya cagaaran oo deegaankeedu uu dhowrsan yahay lehna dhammaan siyaasadda shuruucda laga maarmaanka u ah maareynta arrimaha deegaanka mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal dawladnimada waxa uu dhaxaad u ah dhismaha hay'ado ku dhisan sharci oo awoodi kara in ay si hufan u gutaan waajibaadka loo igmaday hay'adaha noocan ah waxay inooga baahan yihiin tayeyn joogto ah oo lagu horumarinayo xirfadaha dadka ka shaqeeya hay'ada dawladeena nolosheena guusheena iyo qarannimadeena waxa aasaas u ah inaan ka shaqeyno garsoor ku dhisan cadaalad ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wayda hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl dib u dhiska dawladeena waxay u baahan tahay garasho wada tashi kalsooni dhisid iyo go'aan ku yimaado cadaalad iyo garsoor loo siman yahay taasi oo sahlaysa inaan dejisano xeerarka iyo shuruucda hagaya geedi socodka dawlad dhisideena maanta mudanayaal iyo marwooyin ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo kaalinta baarlamaanka federaalka oo ku leeyahay hirgelinta dhammaan himilooyinka qaranka uu hiigsanayo dhammaanteen waxaa nagu waajib ah in aan ku shaqeyno dareen iskaashi iyo wada shaqeyn inaga oo mudnaanta siinayna dejinta dhammaan shuruucda loo baahan yahay iyo fulintoodaba waxaan si xushmad ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa in aad kalfadhiga cusub fududeysaan intii suurtagal ah dhammaan shuruucda idinkaga imaan doona xukuumadda shuruucdaas oo hiigsigoodu yahay arrimaha aan soo dulmaray walaalayaal waxaan haysanaa fursad qaali ah oo aan dalka iyo dadkaba ku samata bixin karno taariikhda ayaa xusi doonta kaalinta uu qof kasta uu ka qaato dadaalka iyo halganka maanta socda ee dawladnimadeenu u baahan tahay
xildhibaanada Soomaaliyeed oo walaalayaal gabagabada halganka maanta socda wuxuu dhali doonaa Ilaahay idankiisa aabbayaasha Soomaaliyada cusub iyo geesiyaal taariikhdu ay xusi doonto sidaas daraadeed hogaamiyayaasha maanta waa inaga ayaanay ina seegin fursadaas haddii aan la yidhaahdo haddaba anigoo gudanaya waajibkayga dastuuriga ah sida ku cad qodobka 9aad xarafkiisa ga ee dastuurkeenna waxaan ku soo gabagabanayaa hadal jeedintayda kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa noo furaya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaas waa si kooban waqtigu maadaama iska xadidan yahay waqti dambana yahay laakiin walaalaha sharafta leh ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan mar walba ku adkaynayaa oo ku celcelinayaa wada jirkiina iyo u heelanaanta hawshu inay socoto isqabqabsiga iska hor imaadka hadallada kala socdo dhan dib un bay noo sii dhigayaan waxaan bogaadinayaa runtii labada gole wada shaqaynta iyo quruxda bilowga ah ee ka muuqata waxaan rajaynaynaa in ay sidaas kalfadhigan iyo kalfadhiyada ka dambeeyaba ay sidaas ay ahaan doonto aad iyo aad ayay u mahadsantihiin guul iyo waxaan idin rajaynayaa gobonimo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu